عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan akhyaartana daawanaysa iyo kasta ka joogtaan daafaha caalamka. Ku soo dhawaada YouTube-keena Nabadi Bari Channel. Warka caawan leeyahay waxa uu dooron Mareykan oo ka hadlay dagaalka Bariga Dhexe iyo Iran oo ka jawaabtay hadallada ka soo yeedhay caawa Trump iyo Azerbaijan oo iyana halka ka hadashay xoga dagaal weerar lagu soo qaaday abagantaa lagu dhintay iyo wararka Yurub iyo Afrika iyo wararka Soomaalida qodobada wararka dalka ku soo koobo wararkii oo fidsan Donald Trump ayaa ka hadlay xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa United States, Israel iyo Iran. Trump ayaa sheegay in Tehran ay sii wado weerar ka dhan ah Israel iyo dalalka Khaliijka, taasoo ku tilmaamay mid sii kordhinaysa khatarta amni ee gobolka Bariga Dhexe. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in wada hadallo ama heshiis lala geli karo Iran oo kaliya haddii ay joojiso weerarada isla markaana ay aqbasho shuruudaha Mareykanka. Wuxuu sheegay in haddii arrintaasi dhacdo Mareykanka iyo xulafadiisu ay ka shaqayn doonaan dib-u-dhiska iyo horumarinta dhaqaalaha Iran. Trump ayaa sidoo kale sheegay in Iran mustaqbal wanaagsan ay yeelan karto haddii ay doorato waddo nabadeed, isagoo fariintiisa ku soo gabagabeeyay halku-dhig Make Iran Great Again. Dhanka kale, dowladda Iran ayaa ku adkaysatay inaanay wadahadal la geli doonin Mareykanka inta Washington ay sii wado cadaadiska militariga gobolka. Hadalladan ayaa imanaya xilli xiisad militari iyo duqeymo ay ka socdaan qaybo ka mid ah Bariga Dhexe. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in weeraro loo adeegsaday diyaarado aan duuliyaha lahayn droniska lagu bartilmaameedsaday goobo rayid ah oo ku yaala gobolka Nikfashin. Sida uu sheegay Aliyev, goobaha weerarada waxaa ka mid ahaa garoonka diyaaradaha, dugsi, dhismayaal kale oo rayid ah. Madaxweynaha Azerbaijan ayaa dhacdadan ku tilmaamay fal argagixiso, wuxuuna dalbaday in dadka ka dambeeya weerarada la horkeeno cadaaladda. Waxa uu sidoo kale dalbaday in Iran ay bixiso sharaxaad rasmi ah oo ku saabsan dhacdadan. Dhanka kale, dowladda Iran ayaa si cad u beenisay inay ka dambeyso weerarada daroonka. Istiraatiijiyadda dagaalka Iran. Falanqeeyayaal amni ayaa sheegay in Iran ay u adeegsanayso xeelad militari oo heerar kala duwan ah si ay u maamusho dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Istiraatiijiyaddan ayaa ku salaysan in Tehran aysan hal mar wada gelin dhammaan xulafada militari, balse ay si tartiib ah u adeegsato kooxaha ay taageerto ee gobolka. Tallaabadan ugu horreysa ee xeeladan ayaa ahayd in la dhaqaajiyo kooxaha hubeysan ee ku sugan dalka Ciraaq, kuwaasoo bilaabay weeraro ka dhan ah saldhigyada reer galbeedka. Dhanka kale, kooxaha Hezbollah ee ku sugan dalka Lubnaan ayaa sidoo kale si tartiib ah ugu lug yeelatay dagaalka, iyadoo lagu sheegay inay leedahay awood militari oo xooggan, gaar ahaan gantaallo iyo dagaalyahano khibrad leh. Waxaa sidoo kale la sheegay in Iran ay weli si buuxda ugu darin dagaalka kooxaha Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen, taasoo falanqeeyayaashu u arkaan xeelad ay Tehran ku kaydsanayso awoodda militariga mustaqbalka. Habkan waxaa loo yaqaanaa kaydinta awoodda militari, taasoo u oggolaanaysa Iran inay sii wado dagaalka haddii uu noqdo mid dheer oo ku fida dalal badan oo gobolka ah. Wararka Yurub. Investment Bank ayaa ku dhawaaqay maalgelin ka badan 1 bilyan oo euro oo lagu horumarinayo mashaariicda tamarta nadiifta ah ee Afrika. Ujeedadan mashruucan ayaa ah in koronto la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika, isla markaana la yareeyo isticmaalka shidaalka waxyeellada u leh deegaanka. Sidoo kale, shirkadda diyaaradaha LATM Airlines ayaa qorsheynaysa inay bilowdo duulimaad toos ah oo u dhexeeya magaalada Amsterdam iyo Schiphol, taasoo la filayo
inay kordhiso ganacsiga iyo dalxiiska u dhexeeya Yurub iyo Latin America. wararka ka imaanaya dhanka iyo Afrika warbixino cusub ayaa sheegaya in dalka Suudaan uu noqday mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee lagu beero laguna farsameeyo xashiishka loo dhoofiyo suuqyada caalamka. dhanka kale xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea iyadoo ciidamada labada dal ay ku sugan yihiin xadka taasoo sare u qaaday walaac laga qabo in dagaal cusub halkaa uu ka qarxo. sidoo kale xogog aanu helayno ayaa sheegaya in halkaa dagaalada ka socda 42,000 oo ciidan wax laayay iyo wax yaacay laga dhigay. dowladda Itoobiya ayaa kala soo baxday ciidamadeedii siday wararku xogu noo sheegayaan. ciidamada halkaa lagu tababaray waxay ahaayeen 60,000 42 ayaa loo diray 42 wax yaacay iyo wax la qabtay iyo wax dhintay iyo wax soo raacay kooxaha kale la dagaalamaya TPLF. wararka ka imaanaya Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka tallaabo ay dowladdu sheegtay inay muhiim u tahay horumarinta nidaamka dowladnimada. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wada hadallo la yeeshay hogaamiyaasha Jordan iyo Qatar si loo xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed Soomaaliya la leedahay dalalka gobolka. dhanka kale doon siday badeecado ganacsi ayaa dab ku qabsaday xeebaha magaalada Boosaaso iyadoo la sheegay in doontu ka timid dalalka Khaliijka. wararka ka imaanaya Somaliland ayaa u dirtay 25 khabiir dalka Israa'iil si ay u qaataan tababar ku saabsan horumarinta khayraadka biyaha iyo beeraha. Burco waxaa lagu xidhay 5 ganacsade oo lagu eedeynayo inay iibsadeen raashin si sharci darro ah looga bixiyo bakhaarka Northford iyadoo baadhitaan arrintaa la xiriira uu socdo. dekadda Berbera ayaa si weyn u horumartay kadib maalgelin shirkadda DP World iyadoo dhaqdhaqaaq konteenarada u kordhay ku dhawaad 30%. 2023 ilaa 2025 warbixin ay daabacday Agency France Presse ayaa sheegtay in dekaddu noqotay mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ee sida degdega u kobcaya ee geeska Afrika. dhanka kale Allah u naxariistay marxuum Cali Maxamuud Axmed Talaad Cali Muran ayaa ku geeriyooday magaalada Jowhar kadib markii ay shimi weerartay. weerarkaasi wuxuu sidoo kale dhaawacay ilaa 5 ruux oo kale oo ku sugnaa meesha. waxaa la sheegay marxuumka dhintay in walaashi lagu aasayay meesha xabaasha ahayd ee shinidu ku soo weerartay ka bacdina isagana ay ku dul dishay xabaashii walaashi lagu aasayay. dhacdo cajiiba ka dhacday magaalada Jowhar. dhanka kale Faarax Macalin oo ka mid ah siyaasi ka soo jeeda dalka Kenya oo looga taagi waayay Somaliland baryahan dambe ayaa odayaashiisa ay xal ka bixiyeen sheegeena in Somaliland ay abaal weyn u galeen markii NFD markii ay haysteen Kenyan in Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uu galay abaal weyn in markii dambena odayaashii isaaqay joogay Nairobi iyagoo soo galin reer Gaarisa Nairobi ay nimankaasi ooda ka qaadeen isaaq abaalkay u galeen. maanta ayay odayaashii ka jawaabeen oo dhan walaalaha iyo hadalkii ka soo yeeray Faarax Macalin xaal baanu ka bixinay ila daawada waa ku odayaashii hadlaya. Xaaji Ibrahim Cigaal markii mijisiida meesha ay joogto anaga gobolka waqooyiga dhibaato badan ay dawladda Kenya lagu haysay aruusha ninkii tagay noo dagaalamay buu ahaa oo naga dabciyay dhibaatadii asaga ah oo wax heshiis la yiraaho annaga Soomaalida ee gobolka waqooyiga ee degan iyo dawladda Kenya dhaxdana ninkii ka abuuray ilaa Kings County baa loo soo yeeray Zambia madaxweynaheedii baa loo soo yeeray madaxweynihii geeska Afrika oo yaa iskugu imaadeen sida arrinta looga hadli lahaa. waa lagu caayay xagga wadanka Soomaaliya awr dabar la'aan dhacay waxa dilay duwaage hadegdegina dayde dib u fiirsa xaajad Ibrahim Cigaal markii hadalka la lahaa macaalka faraha ku galiyay baa la dadku uu hilinayeen anaga arnay dadkiisa maanta inaan gaalo ku tilmaano ilaa lagu duulaan dhahno waxa asaga wax noqon karo ma aha. waxaan ka xumahay walaalkay Faarax daawaya war waxaan caawidin hayna waa naga intaa tan iyo intan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan khiyaartana daawanaysaay subscribe iyo share iyo like ta saara kor u qaada bahalka baryahan